walaalayaal nabigeenu wuxuu yiri ducadan ku duceysta si adinka iyo waaridkiinaba loogu dambi dhaafo ducada yar oo muhiim ah ayaa rabaa inaan ku soo gudbiyo muuqaalkan waxaan seen ka cusana inaad nagu caawisan sida aan ku gaarsiileen ummadda oo aad leeg saartaan siina shargareysaan waa wax wanaagsan sidoo kale hadii aadan hore noola socon waxaan ka codsanaynaa inaad taabatid meesha koray follow ku qoran tahay si markasta ku soo gaaraan muuqaalada faa'iidada miran ah in halkan soo gelinayno nabigeenu wuxuu yiri ku duceysta aayadan quraanka oo ah ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب آيادنا معناheedu wuxuu yahay ilaahu aniga ii dambi dhaaf waaridkaygana uu dambi dhaaf dadka muuminiintaana uu dambi dhaaf qofkii markuu salaada ka baxo intaas akhriya ducadiisa ilaahay uu aqbalaya waxaana badbaadaya asaga iyo waaridkiisa iyo muuminiinta oo dhan waayo markasta oo salaada laga baxo ducadu waa mustajaab qofkana ducada waa laga aqbalaa in aad waaridkaaga u duceedo ama ha noolaado ama ha dhinteena waa wax aad u wanaagsan waayo qofka waaridkiisa markuu u duceynayo ilaahay ducadiisa waa u aqbalaa sidoo kalena wuu ku barakeeyaa waalidkuna aad ayay ugu farxaan markay arkaan caruurtooda oo u duceynaysa oo baariyaal ah waxaan ku dhiirigelinayaa inaad ducadan akhrisataan marka aad salaada ka baxdaan ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب وآيات قرآن أو دعاء آدنا أوير قف كستان أو حفظي كرو قف كأخرينا وإلهي أصغنا ودنب دافيو والدين تيسنا ودنب دافيو مؤمنين تنا ودنب دافيو وانا وح آدياد وين ولوبا هاي ومدى مسلمين تايني كبر أروان مركلنا وحان كعسان يا إنا تفافسان دعادان سي أقار طلمان ومدى مسلمين تاوي وحوغا فائدان oo una akhristaan markasta oo ay salaada ka baxaan si dhamaanteen Allah subhanahu wa ta'ala oo noogu dambi dhaafo nabigeenu wuxuu yiri ku duceysta aayadan quraanka oo ah ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب aayadan macnaheedu wuxuu yahay ilaahu aniga ii dambi dhaaf waaridkaygana uu dambi dhaaf dadka muuminiintaana uu dambi dhaaf qofkii markuu salaada ka baxo intaas akhriya ducadiisa ilaahay uu aqbalaya waxaana badbaadaya asaga iyo waaridkiisa iyo muuminiinta oo dhan waayo markasta oo salaada laga baxo ducadu waa mustajaab qofkana ducada waa laga aqbalaa in aad waaridkaaga u duceedo ama ha noolaado ama ha dhinteena waa wax aad u wanaagsan waayo qofka waaridkiisa markuu u duceynayo ilaahay ducadiisa waa u aqbalaa sidoo kalena wuu ku barakeeyaa waxaan ku dhiirigelinayaa inaad ducadan akhrisataan marka aad salaada ka baxdaan ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب وآيات قرآن أو دعاء آدنا أوير قف كستان أو حفظي كرو قف كأخرينا وإلهي أصغنا ودنب دافيو والدين تيسنا ودنب دافيو مؤمنين تنا ودنب دافيو وانا وح آدياد وين ولوبا هاي ومدى مسلمين تايني كبر أروان مركلنا وحان كعسان يا إنا تفافسان دعادان سي أقار طلمان ومدى مسلمين تاوي وحوغا فائدة